waxaan soo maray jeelka la yiraahdo Jeelgaadeen waxaan soo maray jeelka la yiraahdo Jeelgaadeen waxay soo qabtay ciidanka new booliska ku magacaaban ay soo dirsatay Itoobiya anigu umur baana marka 3 habeen umur shacabna waana qof urkoona istalqabad kulana maana urkoona la shaqeysana waa la soo qabtay marka aniga keligay maana ahay afar gabdhood oo mid ugu dambeysay ay markaa umulantaas wax saacad ah waanu inta umulaha ay korka guud waxaan ka in 12 gabdhood iyo 12 wiil ana lahaayeen 5 bari baan lagu hawlgalay buuro la yiraahdo gobolada Ogaadeen yaan waxa ka soo jeeda gaar ahaan gobolka Nogob buuro la yiraahdo buuraha xeebta oo daaqata la yiraahdo anagana lagu hawlgalay 5 bari baan lagu hawlgalay 5 bari baa ciidan hawlgal ah aan la soconaa anagu ilmaha waxa noogu daraan jirtay kolka intaan surmino anaga ilmaha noogu kala didino ilmuhu qeydku noo qaban waayo in anagu aadno in socon kar weyno ay nafta nolol sarqa ilmaha oo nagu waajir intaas baan anagu ku jirnay kadib waana la soo qaaday meel baan la soo saaray waxaana la keenay degmada la yiraahdo Galaash degmada Galaash la yiraahdo la keenay waxaana loo isticmaalay anaga jirdil aan la soo koobi karin xamaga waana la qaban jiray faraha xamaga waana lagu qaban jiray maryaha inta laga dhigo godka dhiiga wiilasha meedka shalo kale amaanto kale la gowracina lagu xareeyo ba waxaana la dhigi jiray hadayda naftiina qibo ka qaban sida wiilashaas oo kale yaa la idin galiya si degdeg ah hadaydan waran maxaana danagu waramena waan baanahay gurigeennagii iyo gurigooyada reebaadiyon ku dhalanay baan laga soo qabtay deena waxaan dhahay naftu mana awasho mana akhirto waxaana deena waan dambi aanan gelin bay rabeen inaan isku furno urkoona lifna ku anagu macnaa urku inuu meelaha socdaan markeen ama meelaha isku haystaan ama ka dagaalamayaan laakiin saalqadana urkoona lifmaana ku lahayn waana la keenay jeelkaas aan ku jirnay fiidkii markay tahay maalintii waxna la dirdilo waxna la qadaado waxa laga yaabaa ilmaha adoo umula barta banaanka laga dhigaya waxa lagu fadhiisanayaa suudiga ciyaada waxa lagu dhiibayaa 2 dhagax 12 maanta waxa lagu dhigay iska lawiyaha laab maryaha korfay suudiga kulul baa loo yaa lagu dhigay 2 dhagax lagu dhiib waxa lagu dhihi gamcaha ma doojin kartid nin qori wata lagu ag fadhiisanaya ilmahaagi adigu iyo waxaas iyo ilmo oohin iyo waxaas lama qor haduu baqteen waa ilmo oo bayo baqtiyay haduu baqteen isaga u taala 12 maanta dhidid iyo dhaacin dhagaxyaha kor u baacinay dhidid iyo dhaacin xafirta ka dhamaanaysa xaqana waxa ka fadhiyay nin qori buuxaysta in yar hada ikhtiyaar laan dabka siis qabanaya baa lagu leeyahay aday ku tahay waxa laga yaabaa 12 maanta inaad qaadato wiilasha sidoo kale isku guri u yar baasaan oo kala baxsanayd wiilasha sidoo kale inay la qabeen waa la baacin wiilasha mud iyo dareer intii laga dhigo oo 30 xaqana 20 qabato xaqana 20 qabato waa la oran qabso wariya ma taabatay mastarada aqriisa guri markuu waan taabtay baa la dhig faraha ka qaad markaas halka laga soo day qoriga shubkiis beenad kala darayo qofka la gowracayo kow iyo laba lama soo oran karo aniga iyagan kula hadlaya waxaan mulanaa marka muddo yar 40 kamaana bixi waa la qaaday waxa la yiraahdaa sheek nimankan ururkan adkiin dagaal ka dhacay meel agtanada oo dagaal ka xiriirka dushiisa nimankii dhaarti dhaweyta meesha kaga burburo ee ogtahay reeytuna dushiisa caanaha looga qaaday gelin caanaha looga qaaday sheek bade nimanka aanu lama soconin baan ku mana raac wax aniga aan la socday iyo waxa xidhay dhigtaan kama saarin karaan ku dhaan hadda sheegin anaga qabtad ku sheeg garanayna la yiraahdo si marad go'ban wana garbasaar weyn waa laga dhuftay ilmihii la iga dhigay dogarada afayga iga istaaganeen ciidan wardiga hal dirac bisay ugu soo reey masarkan madax ku qabay tawiis gogarada iga istaagay garbasaartan qabiga tuuray gambadii iga tuuray wuxuu dhahay kabta aad ku sheegayso ana ku fasili doono xamagow bacwilkeen basbaas loo waxaas way dhamaatay bacda intii basbaaska loogu shubo basbaas iyo kurka lagu gal markaas xarig talbinooda kan dadka lagu dabaa korka laga noorin kolkaas adigu intay xaariya ka dhamaadana bal dhaqtay sida meedka yaa goordan basoo mirsan markaas soo mirtay haddana ka bixiyo hal gudhi isgal maxaan isu galada waxaan ahayn ma isgal maskax waxaan ahayn sheeg meesha sheeg karta waxba ma garanay baad soo istaagad
markaa soo miirsatay aan soo miirsaday baa waxaa la dhahay haye ma sheegaysid macalkeenti kuma sheegayso maaha markaa indhaha waxa ma kala arko indhaha ilmadu way iga socotaa waxa la waxan kala arka mala baa waxaa la dhahay dhig ilmo uu qaad wuxuu geeyay god xiradhig god uu geeyay kolku u horeysay waxaan arkay wiil saa u soo jeedo oo kurku xagga kore ka gowracay luquntan ay saas soo doomarsan tahay saas oo fiirin indhii aan wali isku qaban meeyka kurku ka go'ay laakiin indhaa wali isku ma qaban waxaan arkay haddana xagga dambe ii dawmar xagga dambe ii dawmar marka xisku markaas uga tagaan malaa show hadal iyo huwan iyo waxba ma kormahayn xitaa dhulka ma dhowri jirin dadka aan markaas ma garanayo waxa la dhigi jiray cirka ma soo dhowray muddo markaas ha ba qola kala meel ka soo hadasho on marka kuwii degmada galasha joogay waxa la gabadhaas in yaraan ku soo gaadho markaana ani marka waxa iyagu ileeyeen Allahumma dhihin laakiin marka ileen toog ba ku soo baxay in aad sida kuwaas dad sheego weyd inaad u dhimanayso waa la ila soo hadlo waa la soo bixiyay banaankii baa deedna anigoo garbasaarta bisayta qaba iyo ka taadiraca banaanka waxaan garanayaa inuu dirac kor igu qaado dircii uu kor igu qaado dircii dilaacay ilaa wuxuu dilaacay intaan laag dircii anigu marka laba garbasaar sulkaan soo qabtay banaanku i keenay wuxuu dhahay nin baa ku iman doona ninkaas soo arqab eheliya daaweeye waxa aan ku soo marinay ma sheegi kartid ninkaas markuu uu ku yimaado arqabadu oo aan ku soo marin hadaa sheegtaada dhimana anu marka uu saayilay ma joogo qof damiirkiisu joogo mi ama hadlayo hadal u furan mi anu markaas iyada qof hadal kolka ka furan yahay ma bihiba isna hadal ma maqay laakiin saas ku leeyahay leeyahay gabdhiba kolka la soo dhexfirsiin maxaabiist waa imaaday bartii waan imaaday dadkii igu sida imaaday hadal baa leeyahay waay marka muddo 2 bilood iyo 10 habeen ba hadal leeyahay waay markii hadalkii leeyahay waay ba in badan yaa meermeeray ehelkii ku qoladan barbaraalaha waxba aan soo laakiin qof gaaloobo barbaraalaha gaalada raacaya ay soo dirsatay Itoobiya dadka Itoobiya soo dirsay dadka nolosha ku maraya baa wuxuu maxaa ku dhacay gabadhan diwaakan way hadli laadahay hadalkii baa laga leeyahay mooji baa la saamaan ku arag bes waa la qaaday waxa la ii fasiliyaa bay waxa la dhahay ilmaha waa la reebaya jeelka lagu haynaya gabadhan inta qaadad meesha geenge abay uu qaaday qolo xira oo shariif oo meesha kolka degmada kortaaliya la yigay jeelka gobolka galasha ku jira xitaa wali jeel waadin ma soo gaar adu qoladii waan soo hadlay 2 bilood iyo 10 maalintii 11aad baan soo hadlay maalintii kolkaan soo hadlay ba kolka kii meesha yiraan gabadha arko uu yar maqan hooyaday way keentay jeelkii waa ku soo celiyaa leeyay waa la igu soo celiyay waxa la yiri hooyaday waa laga qaaday meel xire ciidan la geeyay xitaa gabdhahay hadaa sheegid baa lagu yiri dibka ku soo maray isjir baa lagu yiri adeer labadeena ay suran labadeena ayaa suran idin nooma dhaxayso hooyada aabaha ehelka kan kule u ka tagaya kan ha ku hawlgalaynaa hadaa sheegtado da u sheegtid birka maal wuxuu dhibay ku gaadhano kuma naan gaarsan yare hada laakiin kolka hore xukun baa lagu qabtay waa lagu tooganayay hada laakiin lagu ma tooganayo waa inaad hal yiri aad aamusto jirogadanayma waa la soo gudbiyay gaar qabaal anagoo intii dawada loogu soo tuuro waa la wareystay uu yimaado adeer maxaa ku qabsaday wax baandha waayo qofkan gaalka oo bule aamiin waxbaan ku dhahay waa maalintii dambe baan la soo gudbiyay maalintii markii la soo gudbiyay baa waxaana la keenay jeelka la dhaho jeelka meel asluubta la dhahaana la keenay asluubta markii la keenay baa waxaan fiidkii baa anagu caruurtii loo rurido aniga iyo gabadh markii dambe jirjirka ku dhiman doonto oo walaashay ah hooyaday daadi ka yareeday dhashay baa waxaan la yiri labadiina gabdhaha la mid ma tidin ka soo dhaxkaa caruurtana dhigato filis waan dhigin caruurta waxaana la geeyay eelka la dhaho gidibkana la geeyay maryahana laga dhigay hal buumahana lagu reeb farta fariirada leeyahay laga xidho bihii bana lagu riday
أنا مركا حسب مركو لقيت عندها كعمني إنسان كعمني إن أف كعمني وربع سنتين بين السود هي مرقم بطل بيه بين الجور ذي قدك وقربو ضدك الجوكسين يسوعيلا مالك استعمل مركا بيها إلا دقة وانك درجنا أنا ما هذا كرر مركز أنا هاي مركز ده من مدي وأنا ماني ماشي ونقص بحيان صون قرر كود دستو يعرف كنا لوجو دوك كريمر بيه بين الجو سوركس marka gabadha dhimatay degtan arbaaxada laga dhuftay degtaas dil ala qanjidhada suunkii ay ku wadeen bay waxay soo rutay dhig haleela suunkii ay soo wadeen baa waxay soo rutay gabadhii dhig haleela ana jirdulkii hor iyo biyihii iyo humaajiga baa isqoomay dhig haleela walaasheelka ku soo rutay biyihii halkii baa anagana laga soo rogay halkii baa haddana aroortii dambe iyo jalwadeena loogu gudbiyey waxaan ku jiray muddo 3 sano jirwadeen iyadoo ay ku dhimatay gabadhii walaashay sida ay jalka oo jirdilka u dhimatay oo dhiig xag hore xag dambe ka bitay waxaan ku wada hayn jiray anakii umushaan ku ah iyo kayada umusha ku ah qaab waxa ay maalinta igu fasalmad maxay maalinta walaashay min nafta meedkii kolkaan afka saa u qabtay ana afka sida meedku waayo walaashay ay